الله الرحمن الرحيم. Withhold, withheld, withheld, xayirid. Withhold, withheld, withheld, xayirid. Withhold, withheld, withheld, xayirid. Withhold, withheld, withheld, xayirid. Hold, held, held ayaa soo arag qabashay ahayd tan maxaa waa xayirid qof waxa uu lahaa oo laga xayiro lacag loo haayo lacagtii leeyahay lacagtii lagu sii maayo ilaa wax ka samaysa shaygan laga haayo waa ka xayiran yahay ilaa wax ku dhaqaaqo withstand, withstood, withstood iska caabin Wring, Wrung, Wrung, Majuujin ama Maroojin. Wring, Wrung, Wrung, Majuujin, Maroojin. Write, wrote, written, Qorid. Write, wrote, written, Qorid. Waaya waxaa intaas noogu dhan erayadii strong verbs ka ahaa waxaan soo sheegnay tenniskan marka la joogo in ficilada ay u qaybsamaan laba qaybood weak verbs oo ah kuwa ed ama d ama id lagu daro iyo kuwa la yiraahdo strong verbs oo ficilka presentiga iyo pastiga ay laba kala noqonayaan erayga uu isbedelay tusaalahan markii presentiga ah haystid past ka dhig hadii lagu yiraahdo waa fududahay tusaalahan aniga waxaan qoraa maalin walba I write something every day waxbaan qoray shalay markaan rabo inaan dhaho maxaan leeyahay I wrote something yesterday shalaan wax qoray isaga wuxuu majuujiyaa he rings every day shalay wax majuujiyay markaan rabo maxaan leeyahay he rang wuxuu majuujiyay baastigaan isticmaalaa iyagu way iska caabinayaan they withstand every day they withstand way iska caabiyeen shalay markaan rabo maxaan leeyahay they withstood baastigaan isticmaalaya waxaan ka xayirayaa lacagtiisa I withhold his money waxaan ka xayiray lacagtiisa I withhold waxaan ka xayiray I withdrew waxaan la baxayaa lacagtayda my money from the bank I withdraw waxaan la baxayaa I withdrew waxaan la baxay he is winding wuxuu qodayaa he is winding wuxuu qodayaa he wound wuxuu qoday oo he winded I am winning waxaan ku guuleysanayaa hadda I won waxaan ku guuleystay so erayadan markasta oo aad present ka hadlaysid waxaa isticmaalaya qaybta koobaad markasta oo aad past ka hadlaysidna waxaa isticmaalaysaa qaybta dhexda ayaa isticmaalayna so haddii la keeno kuwan dhexda ah ereyga did haddii la keeno oo su'aal laga dhigayo ereyga waxaa loo celinayaa presentiga I wrote meeshii ahayd su'aal haddii aad ka dhigaysid maxaan leeyahay did I write miyaan qoray did I write he rang meeshii ahayd wuxuu majuujiyey su'aal ka dhig did he ring alle did he ring presentiga u celinaya maadaama inta did oo pasta ay joogto pastiga inta ahayd wuxuu aadaa presentiga ayuu aadaya I withdrew meeshii ahayd su'aal ka dhig did I withdraw I am winning I won meeshii ahayd su'aal ka dhig did I win he wept waa ooyey wuu ooyey maxaan leeyahay su'aal ka dhig he wept did he
weep. Did he weep? Presentiga hore isticmaalaysaa. Did he weep? sidaas ayaa loo wada samaynaya kulligood. erey kasta markii pastiga la isticmaalo haddii su-aal ka dhig lagu yiraahdo meesha idinku dhib ka badnay halkaas aad pastiga su-aal ka dhig haddii lagu yiraahdo maxaa keenaysaa did markaa keentid maxaa lagaa rabaa inaad ogaatid in waxa pastiga meesha asalka ah ayaa yaalay isna wuxuu isku bedelayaa present ayuu isku bedelayaa waayahay